السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaada saaxiibayaal meel walba aad dunida caladeeda aad ka joogtaan. Waxaan rabaa maanta inaan kula wadaago mid kamid ah qisooyinka Quraanku uu ka qisooday. Qiso loo yaqaano qisatul ifki, qisadii been abuurka ee laga faafiyay ummul mu'miniin Aisha radiyallahu anha. Ilaahay ha ka raali noqday. Ilaahay wuxuu kaga warramay qisadaasi suuratul nuur sida aad garanaysaanba intiina Quraanka akhrisa. Waa kan Ilaahay oranaya innal ladina jaa'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khayrun lakum likulli imri'in منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. قصدا أيانو كورمينا داوده hadii ay tahay markii kugu horeysay oo na soo booqato waxaan ka codsanaynaa si sharaf leh inaad channelka subscribe saarto, share iyo like-na aad noo saarto si uu dad badan u sii gaaro. Soo dhawow saaxiib. Halkan waxaynu ku qaada dhignaa qisooyinka iyo siirada nabiga sallallahu alayhi wasallam. Hadaba daawade sheekadan markaynu ka sheekaynayno waxa hadalka aynu siin doonaa qofkii qisadani ay ku dhacday, qofkii lagu been abuurtay qudhiisa ummul mu'miniin radiyallahu anha Aisha ayada nooga warramayso sheekadan ayada warinteeda ayaana ku haboon dhageysiga dadka ay dhageysanayaan sababtoo ah waa saaxibatul qissa ayada ayay qisadani ku dhacday qofkii qisadu ku dhacday inuu ka sheekeeyo ayaana ka fiican inuu qof kale oo aysan sheekaduba qosaynin uu ka sheekeeyo. Hadaba daawade si aad ogtahay hadii aad muuqaalkan ka horeeyay soo daawatay ama aad taariikhda aad ka warqabto duulaankii Bani Mustaliq markii uu Nabiga sallallahu alayhi wasallam ka soo laabtay oo magaalada Madiina u soo socdo waxaad ka warqabtaa in laba muslim ay doodi dhex martay kadibna ay xaalado ka xumaatay kadibna ay ficiltameen ilaa mid ayaga kamidii ansaar uu wacday kii kale oo ka soo horjeedana asna muhaajiriin uu wacday ilaa sheekadii ay dheeraatay oo munaafiqi weyne Abdullah ibn Umayy ibn Salul uu ka faa'iideystay halkaasina uu goodiyay oo muslimiinta iyo nabiga magaalada Madiina uu ka saaray oo ku goodiyay gadaal taban arintii ay nabiga soo gaartay sallallahu alayhi wasallam. Nabiga sallallahu alayhi wasallam si uu arinta u dajiyo saxaabaduna ay naftooda ugu mashquulaan oo aanay ayagu isagu mashquulin maadaama dagaal ay ka soo bixin na ay daalanayeen wuxuu u sii qoray in la socdo oo aan daalkiiba laga bixin si loo hilmaamo waxyaabihii afcaashi jaahiliga aheedoo reehebel yaal muhaajiriin iyo yaal ansaartii dhacday si aaman loogu mashquulin oo qof waliba naftiisa uu ugu mashquulo ayaa nabigu sallallahu alayhi wasallam waxa uu amray ayadoo awalba la daalanaa in mar kale la guuro oo la sii socdo. xilli habeena ayaa nabigu sallallahu alayhi wasallam uu amray in la guuro oo ciidankii waxa la ogeysiiyay in nin waliba uu diyaar garoobo si loo noqdo oo magaalada Madiina loogu socdo. ummul mu'miniin Aisha oo ah saaxibatul qissa qisadani qofkii ay qusayso oo beentan laga abuurtay oo munaafiqiinta ay beentan ka abuureen waxa ay leedahay waxaan ahaa gabar aad u yar nabiga sallallahu alayhi wasallam markii uu meel aadaya ama uu duulaan u baxaya waxa uu ahaa mid dumarkiisa u qoryo tuura oo qorqodca ayaa u sameeyay kadibna qofkii qorigiisu soo baxo ayaa suubanaha raaci jirtay oo xaasaskiisa kamid ah markuu nabigu safar aadaya ama duulaan u baxayo dumarkiisa midii raaci lahayd dhammaantood qoryo tuur ayaa u sameeyay sagaalkii dumarka ah ee nabiga uu qabay qofkii qorigeedu soo baxo ayaana suubanaha raaci jirtay. Aisha radiyallahu anha waxay tiri markii la qori tuurtay aniga ayaa qorigeygu soo baxay sidaas ayaana duulaankii Bani Mustaliq aan nabiga ugu raacay. markii laga soo laabtay duulaankii Bani Mustaliq xilli habeenana nabigu sallallahu alayhi wasallam uu amray in la guuro ayaan dadkii dhan waa ay kaceen waana ay diyaar garoobayeen aniguna sidii dadkuba ay sameynayeen diyaar garoowgeygi ayaan bilaabay waxaan aaday duurka si aan xaajadayda u soo guto. Aisha radiyallahu anha waxay leedahay markaan duurka aadayana duurka aad baan ugu fogaan jiray si aan qofi uusan ii arkin sidii ayaana sameeyo aad baan u fogaaday waan soo xaajo gutay kadibna waan soo laabtay halkii awrta laga rarayay ayaanan imid. Aisha radiyallahu anha neef geela ayaa lagu ximbaarayaa oo lagu sidaa waxaana u saaran wax loo yaqaano howdaj kaasoo ah teendho laga sameynayo ratiga dushiisa oo dumarka ay geli jireen oo halkaasi ragga lagaga xijaabi jiray. Hadaba saaxiib Aisha waxay leedahay markii aan xaaji gudashadii ka imiday ee halkii ratigii lagu rarayay aan imiday ayaa waxaan waayay katiinad aan lahaa oo halka qoorta ay igu xirreed baan waayay kadib katiinadii meeshii baan ka raadiyay waan arki waayay ishaydu way qaban weyday kadibna waan laabtay halkii aan ku soo xaajo gutay ayaan u laabtay kadibna meeshii baan maadaama aad aan u fogaaday markii hore halkii baadana aan ku laabtay kadibna waan soo helay waan soo laabtay markii aan soo laabtaba ciidankii waxba ma joogaba qofba meeshii ma joogto qof hadlayo wax juuq ah iyo wax jabaqa toona wax meeshii ka yeerayaaba ma jirto oo meeshii waa hore ayaaba lagu kala guuray. waxaan leedahay Aisha radiyallahu anha waxaan ahaa gabar yar oo khafiifa nimankii xambaaraya howdajkayga ratiga saaraya may dareemin inaan ka maqanahay waxay u maleeyeen inaan ku jiro howdajkii sidaa daraadeed bay howdajkii qaadeen ratigii ayay dul saareen ayagoo u maleeya inaan anigu ku dhex jiro maadaama ahayd gabar aad u yar oo haddana khafiifa radiyallahu anha. waxay tiri markii aan soo laabtay cidna aan waayay katiintiina aan soo helay ayaa waxaan ku fikiray dadkani haddii ku waayaan way ku soo laaban doonaane meeshaada meelnaha uga dhaqaaqin kadibna bartii ay awal ugu ogaayeen meeshii awal manzilka noo ahayd ayaan fadhiistay oo bartii ayaan isaga sii sug intay kaaga soo laabanayaan waxaan saa u fadhiyaba
indhahaygii ayaa iga tanbatay oo hurdada ayaa iga tanbadisay maadaama la daalanaa oo duulaan laga soo laabtay kadibna waan hurday maba soo kixin bay tiri ilaa waagi markuu bariyay kadib iyo nin dushayda istirjaacsanayo oo oranaya inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waana fiiriyay ninka haddaan fiiriyana waa saxaabi aan garanayo reer Badara oo la yiraahdo Safwan ibn Mu'attal as-Sulami Safwan markii uu arkay gabadhii Aisha ahayd ee nabiga xaaskiisa ahayd meeshan kaligeed taagan inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ayaa uu yiri arrintii maadaama ay tahay arrin weyn xaaska nabiga oo kaligeed meeshan joogta iyo ciidankii oo guuray haddaba saaxib si aan waxyar ku fahansiiyo saxaabigan qodhiisu maxaa xilligan meesha dhigay uu ka qabanaya ciidankii waa ka xalay ruqaansaday oo guuray saxaabigan radiyallahu anha wuxuu ahaa mid ciidanka ka dambeeya mar walba oo ciidanku waxyaabaha ay ka tagaan iyo qofkii xanuunsada ayaa uu ka warqabi jiray oo gadaal hadii alaab u dhacdo gadaal ayuu ka soo qaadi jiray hadii ciidanka qofkii ka haro nin ka warqaba ayaa uu ahaa oo mar walba ciidanka gadaashiisa ayaa uu socon jiray sidaa daraadeed ayaa ninkani subaxdii markii uu soo dhaqaaqay oo doonayay inuu ciidankii ka daba tago ciidankii waxa ay ka tageen oo meelaha ka fiirfiiriyo ayaa waxa uu arkay xaaskii nabiga oo meeshan fadhiso waxaana ay leedahay Aisha waxaana uu ahaa Safwan mid yaqaan intan xijaabkana lagu soo farad yeelin ka hor intan xijaabkana lagu farad yeelin ka hor oo niqaabka iyo khimaarka iyo nashareerka aanan xiran ka hor ayaa Safwan uu garanayay oo yaqiin geedna marka uu arkay ayaa waxa uu yiri inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun kadibna waxay tiri wallahi inuusan erey kale uusan ku dhawaaqin hadal kalena uusan dhaxmarin waa uu soo dhaqaaqay Safwan ratigiisii ayaa u tujiyay deedna waan koray way tiri ratigii ayaan dhakada kaga fadhiistay sida ayaana ku dhaqaaqay waan soo dhaqaaqnay xilli duhura ayaa ciidankii oo degay ayaanu ka daba nimid sheekadu markii halka ay marayso ayaa nimankii munaafiqiinta ayaa waxay arkeen ninkii Safwan ahaa oo xaaskii Nabi Maxamed ratiga ay u saaran tahay kadibna munaafiqiintii maxaad ku taqaanaa hada awalba meel muslimiinta ka galaan iyo nabiga ayaa ay raadinayeen halkana baadidoodii ayaa ay ka heleen waxana ay yiraahdeen wallahi kama uusan nabadgelin ayaduna kama nabadgelin يعني لبضاني كلام النبات قلين أو لبضاني كلام النبات قبان يعني اسمه دافن لبضاني أو لبضاني اسمين دافن يعني وحي كنتو ميان إني اسكزينيستين سبحان الله حاشا لله مع عائشة رضي الله عنها وهوس جوكت النبي إلهي الدونك الروح وخير كبضان أيائي كسور تودا أبو بكر رضي الله عنها إلهي كرر النقضاء عائشة أبهد وحوليهي xilligii jaahiliga iyo islaamka gurigeena musiibada ku dhacday musiibo lamidihi nama soo marin buuri in la ku tuhmay buu yiri in waxa weeye faaxisho aan sameeyay radiyallahu anhu war xilligii jaahiliga xitaa na lagu tuhmin buu yiri on ilaahi aanan caabudi jirin iskaba dhaaf marka islaamka kadib in la ku tuhmo waxa weeye arinta ayada falxumada ah munaafiqiintu waxay yiraahdeen wallahi labadani kalama nabad galin deedna warkii ayaa ay faafiyeen magaalada Madiino dhan ayaa ay warkii geeyeen laakiin Aisha waxay leedahay radiyallahu anha markii magaalada Madiina aan imid waan baxanuunsada waxaan oran karnaa anagu maanta xanuunkaasi khayr ayaa Aisha ugu jiray xanuunkaas sababtoo ah sidaan ogaan doono in muddo ay xanuunsan tahay waxayguna waa soo daahay doona Aisha waxay tiri waan xanuunsaday kadibna gurigaygi ayaan iska joogay muddo bila ayaan halkaas isaga xanuunsanay oo magaalada Madiinana warkaygii hore gadaal loo qaaday aniguna wax wara aanan ka hayn laakiin kaliya waxa shaki iga galay rasuulka Ilaahay sallallahu alayhi wasallam aad buu igu naxariisan jiray markaan xanuunsado aad buu ii kulkooli jiray waxaan ka waayay naxariistii iyo kulkoolinta uu kulkooli jiray rasuulku markaas nafteedii waxaan istiraada talow maxaa khaldan wuxuu kugu naxariisan laayaa waa kii kugu naxariisan jiray mar walba waa kii ku kulkooli jiray naxariistii iyo kulkoolintii rasuulku waan ka waayay leedahay bishan aan xanuunsanayo Aisha Allah ka raali noqday waxay tiri markii aan yara caafimaaday oo aan nashaad dareemay ayaa maalmaha kamida aniga iyo Mistax waxaan isla baxnay duurka si aan u soo xaajo gudano oo markaa masquulaha xaafadaha lagu sameystay magaalada Madiina kumay oolin oo xaafaduhu masquula ma lahayn Aisha waxay tiri maraan aniga iyo Mistaxan sii socono wadada ayaa Mistax waxay ku turanturootay maradii ay sidatay ayaa sidii u socotay waa sidii iska caadada bini'aadamka dumarku ay tahay maradii ay wadatay ayaa lugta u gashay deedna way turanturoot markay turanturootay ay waxa ay tiri tacisa Mistax ha hoogo ay tiri Mistax balaayaa ku dhacdo ha hoogo dumarka Soomaalida arag markay ayagoo socday wax lugta u galaan ama yeelan shaydaan waxbay baasaystaan ama waxbay sheegaan Sooma balaayaa ku dhacda kaas ayuu bay iska yiraahdaan markay turanturootay ay waxa ay tiri tacisa Mistax ha hoogo balaayaa ku dhacdo kadib Aisha waxay tiri waaw hadda muddo bil ah ayaa ka soo wareegtay been abuurkan markii la soo bilaabay ilaa iyo maantadan oo hore gadaal loo wada sheekadan Aisha inta aanay waxba wara aysan ka hayninba
war wacaal wax ah Caaisha kama hayso wax dhacay bishaas ay xanuunsan tahay markaasaan waxaan iri ma nin reer badara ayaad caynaysaa maxaa ka qaldan Mistaxay markaasay tiri wallahi uma caynayo ilaa adiga daraada mooyaan Caaisha waaga ayaaba ku bariyay waxay tiri maanaadii caynaysaa oo Mistax muxuu iga leeyahay aniga markaasay tiri war maskiin yahay miyaadan maqal waxa la sheegayo markaasay tiri war maxaa la sheegaya warba ma haysaba Caaisha maxaa la sheegaya Mistaxay markaasay tiri war waxa la sheegay miyaadan maqal dadku waxaas ay ku sheekaysanayaan in ninkii Safwan ibn Mu'attal hay adiga aad waxa samayseen ayaa magaalada lagaga sheekaysanayay gabriya miyaadan warka hayn Caaisha waxay tiri xanuunkii aan hore u xanuunsanaaba xanuunka igu darsoomay markale ayaa masii xanuunsaday tiri xaajadii wixii aan u socdana waaba hilmaamay tiri waaba iska waayaba waxaan dareemay iyo caloosh leega hayo xaaji gudashada aan u socday waanba hilmaamay marba hadii gabar muxsanada dhowrsan oo wiligeedba sidii hooyadeedii aabaheed u dhaleen aan waxaas wiligeed ay soo agmarin la yiraahdo dhilla tahay xanuunka ay leedahay arintaasi qofkii ku dhacday baa garanay Soomaaliduna waa tan tiraada nab iyo naar yaa daran in lagu nabo iyo in naar lagu galsho Soomaalidu waxay ku leeyihiin in naar lagu galsho ayaa daran hadaba saaxiib Caaisha waxay leedahay guriga ayaan u soo laabtay deedna guriga ayaan iska imid markaan guriga imid ayaa rasuulku maalmaha kamid ayaa uu soo galay kadibna waxa uu yiri dadkii ayuu salaamay kadibna waxa uu yiri kayfa tiikum wartiini sidee bay tahay soo ka wado Caaisha midiini sidee bay tahay awalna wuxuu ahaa rasuulku mid aniga yimaado markaan xanuunsanahay kulkuliyo laakiin hadda ma jirto rasuulku waxa uu ku gaabsaday inuu yiraahdo kayfa tiikum ila rasuulku waxa haysto sallallahu alayhi wasallam cadaadis ka weyn ayaa magaalada ku haysto oo nimankii munaafiqiinta ayaa har iyo habeen warkiisa u wareejinayo nin hadda cirdigiisa laga hadlayo oo sharaftiisa laga hadlayo oo xaaskiisa ugu jeclaa laga hadlayo xanuunka uu dareemayo adigu waad garan kartaa adiga bini aadamka caadiga iska daa rasuulka Allah oo culayska aragto saariyahayo muslimiinta dhan waxa way arintoodii halka caatiqa ku hadaba saaxiib rasuulku markuu uu yiri waxa weeye inta kadib Caaisha waxay tiri fasax ayaan weydiistay rasuulka inaan guriga hooyaday aabahay Abu Bakar iyo hooyaday inaan aado ayaan fasax u weydiistay rasuulka waana ii fasaxay Caaisha waxay leedahay dan kale kamaan lahayn hooyay aabahan aado laakiin dantaan lahayn waxay tahay warkan ay ii sheegtay Mistax inaan bal xaqiiqsado inaan ka xaqiiqsado hooyay aabo ayaan doonay deedna rasuulku waa ii fasaxay hooyaday baan u tagay tiri Caaisha kadibna waxaan weydiiyay hooyoy dadku maxay ku sheekaysanayaan kadibna hooyaday waxay tiri gabadhaydii istiji Ilaahay baan ku dhaartay ma jirto gabar qurux badan oo uu qaban nin aad u jecel ninkaasina uu naaga kala uu la qabo ma jirto ilaa hadal badan baa laga sheegaa gabadhaas ma jirtay tiri gabar qurux badan oo nin aad u jecel uu qabo ninkaasina uu naaga kala la qabo ilaa hadalka ayaa lagu badiyaa ay gabarteedii istiji waxa la sheegay dadku iska sheekeeyaan iska aamuso adigu istiji markaasan xaqiiqsaday bay tiri in warka laga sheegayo oo in xumaan lagu tuhmay inay jirtaba markaasan xaqiiqsaday markaasan iri hooyoy oo markaasan magaalada laga sheekeysanaya oo aabahay miyuu maqlay ha oo rasuulka Allah miyuu maqlay ha warkaas waa jira waa loo maqlay magaalada ayaan ku jira Caaisha waxay tiri oo intaan bilaabay ayaan kala joogsan weysaba ilin way kala joogsan weysay wax hurda la yiraahdo waan waayay wax hurda la yiraahdo waa iga soo dhici waayeen bi oo hintina way kala joogsan weysay waa baan ku hayay tiri afka ayaan isku qaban waayay tiri Caaisha radiyallahu anha waa arrin weyn oo gabar lagu tuhmaa oo cafiifadii ay ka dhidhiso Caaisha Allah ka raali noqday waxay leedahay laba habeen iyo maalin ayaan ooynay ilaa aan u maleeyay tiri oo hintani inay wadnahayga laba cad u jari doonto oo aan u dhimo doonaba midatan maalmaha kamid ayaa rasuulki anu guriga hooyo aaba joogo ayaa uu soo booqday kadibna markii uu horeysay ayaa uu ila hadlay waxaana uu yiri Caaisha waxa iga soo ka gaaray sida iyo sida hadii aad bari tahay Ilaahay baa ku bari yeeli doono Ilaahay ayaa ku bari yeeli doono hadii aad dambi gashayna Ilaahay u toobad keen Ilaahay hadii adoonkiisu dambaabo kadibna uu toobad keeno Ilaahay uu ka toobad aqbalaa Caaisha hadaa dambaawday Ilaahay u toobad keen hadii aadan dambaabin bari aad tahayna Ilaahay maartay yahay asaa ku bari yeeli doono rasuulku markii inta yiri qura ilintii iga socotay way istaagtay bay tiri Caaisha ilintii ayaa iga istaagtay deedna aabahay Abu Bakar ayaan u jeestay waxaan ku yiri aabe u jawaab rasuulka Alle adoo aniga iga jawaabay iga jawaab rasuulka Alle aabahay markaas Abu Bakar wuxuu yiri gabadhaydii maxaan ugu jawaabaa rasuulka Alle sax waa tahay gabadhaydii baa tahay ina biritaa waan ogahay been laga sheegay laakiin rasuulka Alle maxaan ugu jawaabaa intaan ka jeestay baa hadana hooyadii u jeestay bay tiri markaas waxaan iri bay tiri hooyo rasuulka Alle iga jawaab markaas ay tiri gabadhaydii maxaan rasuulka Alle kaaga jawaabaa maxaan sheegaa markaasaan arkay bay tiri ina cid difaacaysahay aanay jirin ay tahay inaan anigu naftayda difaaco kadib intaan soo jeestay baa waxaan iri bay tiri wallahi warbaad maqasheen waadna rumaysateen haddaan idin iraado biri baan ahay Ilaahayna wuxuu ogyahay inaan biri ahay ima rumaysanaysaan haddaan idin iraado waxas waa sameeyana waad rumaysanaysaan wallahi inaanan tusaale ani adinka aanan idin haynin illa sidii Abu Yusuf oo yiri oo kale tamaahine fa sabrun jamiil wallahu almusta'anu ala ma tasifun Caaisha waxay leedahay gabar yar baan ahay oo quraanka aan aad u akhrin quraanka in badan oo kamid aan wada aqoonin waxa ii gambiyay bay tiri magacii nabiyullaahi Yacquub oo nabi Yusuf abihi waa Yacquub markaasan halkaan ka dhigi lahaa sidii uu yiri Yacquub baa waxaan iri bay tiri sidii uu yiri Abu Yusuf abihi marka waxaan iri bay tiri fa sabrun jamiil wallahu almusta'anu ala ma tasifun rasuulka arrinkayga waxa uu kala tashtay leedahay
أسامة بن زيد نينك الأورنجري علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أسامة وحو كل تلي رسولك صلى الله عليه وسلم وحو لي رسولك إلهي يو عايشة وحاس كاجي هايسو وح أن خير أهين عايشة كم أوجي رسولك الله سدا أيو كل تلي أسامة بن زيد. أسامة مركا ما دام أوجا إن رسولك وجعلها عايشة وحو كل تلي إنه حاس كيس أو هايستو وحوي وح ونا جموي وح كلنا إنه سنكو أوجي إنه وشيء نينك اللي رد علي الله كره عليه نقطة أصلا وحو كل تلي وحو يري رسولك الله مركو علي أركي رسولك الله عدادس وساريها أدنى لبعض دريميو أيو علي وحو كيري رسولك الله النساء سواها كثير تمرك أنا عايشة هين رسولك الله أد بأفر بدين إلى هين عليكم مجلين سديت كرأيات قبطة وصل الجارية تصدق جبل الجارية دو أهل عايشنا حداد ويدي سحال كذا ربي كوش هيسا مرك على النبي صلى الله عليه وسلم خرط مروة ودجي وحوري عايشة كل يد مقبتي دمر بدن بعض قبطة رسولك الله واستجي مدة كلا وحوي جبل الدون تؤه جبل الجارية دو عايشه بريرة اللي يرادو حال كذا كوريسو ربي كوش هيسا كده من رسولك صلى الله عليه وسلم بريرة أيا ويري حالك عايشة أيا ويدي بريرة واحد يتري رسولك الله والله الذهبك ويكنا ذي في سنته قبل هذا ذهبك ويكنا ذي في سنته وحمانته أي لا هنا ما يجرت والله لكن هذا رنت كوش رسولك الله هل عيب أو كلية أي قبل أن لا هبينكي وقبل يرو داير هبينكي مركع عجين كذا قصنيسو أيوم بيكهرو دا مركز أنت ريدو تمادو أي عجينك كعنطة عيبتك كلية عن عايش هايو وأنت أصبر لا وحكلو عيبة وقبل أن أي لا هاي ما يجرت رسولك الله سيدو كلا رسولك صلى الله عليه وسلم عايشة وحي لا وحكوي دي أرنكيجا حاس كيسي كلا زينب بنت جحش زينب بنت جحش أيا رسولك وحا كيري زينبي عايشة وحبا لغا شيء ياهي محد أكته قبل زينبنا وحي قبر آد ورعني مبضن أيا أهد أم المؤمنين زينب بنت جحش الله كره على النقطة عايشة وحي لا وحي أهد قبل كلية أو دمرك الله يلقبه إيه دي أنت حق قروح ده وقبر آد قروح بدن أيا أهد أيا أنا كم سيري تربى لذا عايش لكن إلهي أيا إلهي ما دام أهد قف آد ورع بدن وحنا يتري رسولك الله أحمي سمعي وبصري أرجيجة هي مغل كيجة وان إلى يا وحنا مغلنا كما حل كريو وحنا أرجنا وحبا كما شيء كريو عايشنا وحن خير هين كما أوجي أيا يتري عايشة وحلا هاي إلهي أيا إلهي لكن ولا شيء حمنا بنت جحش أيا عايشة آد وقول عضي أيضا ولا شيء زينب بنت جحش كروق هذا عايشة إني هوصل اكتنا دونيسو وحنا أي كم ده تدكيكو امتحاننا أرنك أسجع هذا صاحب يال مال ما كم ده مركي أرنك وساء أتكاثر النبي يقولون عريض الدريمي أيا وحا أكرم منبر كدمنا صحابة أيا وحا أكويري يا إيجا عذر داريو أو إيجا قبنايو نين دباتديسو أي جارتي أهلكي نين دبكيسو جاري أهلكي يا إيجا عذر داريو إيجا قبنايو صحابي والله أهلكي خير موي وحكا لكم موجي نينك أي حماطة إنه أهلكي كوسمي أي شيئا خير موي وحكا لنينك موجي ولجيس إن ريركي جمانو أجلين إلا أصوعني إلى سعد مويان إنه ما يهون نينك أسجع يا إيجا قبنايو مركز أو حسوا استاجي صحابي الأوراني سعد بن عبادة مقرن يس صحابي وما أدراك ما سعد بن عبادة ورايا نقص هذا اللي channel كأي أكوجرا لينك جيسن هل كان كوسو صاريا نينك أسجع صحابي صودا وقصديس صحابي عادي ما وابور ماشان فليسا سعد واو استاجي وان وجاسكي أوس كده من وحى ويري رسولك الله أنا جا كاغا عذر داري هدي ورير أوس يهاي هددا لجوجو أيان مدحي سبرتا كوسو دغيا كو أيان مدح كسو سينيا حد أيان هل كان كوسو دغيا هدي ورير أوس يها هدو يهري ولا الله إن خزرج يهينا أمرك هذيك بحنايو كده من أنغون وان فلنينا وان دلينا نكا أسجع أنت مركب وكو هاللي سعد بن معاذ الله كره عليه نقضي وحى حميدي جاهلي أما وحوي فعلتن قبيلته أي تابت نينك الأوراني سعد بن عبادة ها سيدكي خزرج لأنه هو استاجي سعد وحوري كذبت بين باتشكت والله ما أنا أودت إن أدشه هدور ريتولك يهنا والله أنا نساء هذا الشيء أي واحد أكتر نينك اللي قال لي ياهي إنه خير خزرج ياهي وأنا قلنا الشيء وحوي قلبي قال أنا وحبا كترنيو وحى استاجي سحابي كلو جبل أولي يرادو السيد بن حضير مركزوري كذبت لعمر الله لنقتلنه بين باتشكي سا إلهي بنكون نارته وندلينا بوير فإنك منافق تجادل عن المنافقين منافق بات سعدو منافقين ترى وهدو ديسا طبعا منافق ما سعد بن عبادة وصحابي جليلة وصالحة لكن حميت أي هالكاسي لقارتي هي فعلتن كمرك قارنة شيدان كوقف كانوا كتنبضيو وايد عدا حالدنا آد بيوحمات مركي أيسكو أفعليا وغاسيري لبضن بيل خزرج هي أوس هورنا دباتة بدن هي أصاد عدي لكن إلهي إسلامك هي كحلي بوقي مركي أوبطي نأي كل وهذا لبضي قوس إني دقالمان أو إنتي كلبحان سيفا إسو سيبتان أيا رسولك على منبركي كسو دقي كدبني واو تجي وحوري بالاستجية إلى مد خير خزرج كمدي انتو سافتا قالك كسارتي او يري انا مدحي عبد الله بن ابي بن سلول انيغا كيني سو اني رير خزرج مي انا بدليا في النظر دنبا نينكا ودا رسولك انا دبسو نينكا ما وان بدليا كو بان كسينيا واو دقاق مركو سو دقاق با نمن رير اوس انت كدبا اوردين ايا عليين waxaan ku yiraahdeen war rasuulka Allah horta muu amrine balniyo ayr
ويرسك رسولك دي أمره وبالدليل نك لكن وليس رسولك موصل أمرنا ورني وشوك سيدي أيا نك أي كعليا رسولكنا صحابة سيدي أيا أكون تجيي وحنا أكوي بالاستجية حالكو صان أهمايه هذا بس صاحب عائشة وحلاتها الله كره على نقطة مالي ما كمل أيا صون رسولك جورينا فرديو مرك ويري أرنك وحوي إلى توبة كانوا أنا عن دفاعي رسولك والله إلهي بان كل دارتي وحي ترى عائشة ماشي سي كموقع إلى وقفتي وحي قبل جري مرك وحي وكسو دقيو رسولك وحا مرك وحي وكو دقيو مد حالد أدق قلا أياها إلى ما لنت حقاقة هي قبوقة أنا أركي جرنبي لذا عائشة أصو لديد واويني كسعودة ما لنت حقاقة هي قبوقة أيا رسولك لديد جرنبي لذا عائشة وحوي أضيق وكو قبل جري سو دقتانك وحي يقرانك لقود جرني دوشيس كدبنا وحن إسري بيكتري وحبا جرا عائشة الله كره لنقضي وحي لذا هاي إلهي إنه مالن أن إبري يلي دونوان أوغا لكن اسم الله هين بينتري قرآن أيا كوسو دقية إلى قيام الساعة الآخرين دونه وصلاة اللي قد كان دونه أيا كوسو دقية لكن وحن إسلها بيتري رسولك وجيفان دونا مركو هردنا وحكور رياض دونا إلى بريت هاي وحل جاي شيء أي بنت هاي أيو رياك وأرك دونا لكن هو إسكال اللي تبي إلا هاي إن إلهي قرآن يقصو دجيو أو حوي أدبان صلها هاي تري ما أديك إلهي وحوي قرآن كوسو دجيو ماي وإسكال اللي تبي إلا أرك أسقع لكن رسولك والله قبت مركي اللي قبتنا حالات دي مركي وكب حي أيو رسولك أصو وجيسو إفتيم أيو وأد مود ضيع حفري الطبنا هذا أيها رسولك أفكك الفري وحن أكويري أبشر يا عائشة فقد برأك الله عائشة بشارة سو إلهي وكبرية هو يدي مركي أنت مقشي ماشي أي فدي سي أي تريتي استجمع داي واستاك رسولك هدنا مركزا وحي تري والله إلهي بان كل دارتي إن أنا استاجين إن أنا هدنقين أذيك هوي أبينا أنا دين هدنقين إلهي كلي أيان مهدنا يا سببت أورك واد مقشين ما أيضا إنكرن إلهي كلي أيان هدنقيا إبريالي مركز رسولك أيديك كسيداي إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم العذاب العظيم آياتك طبنك أيونا كسيداي رسولك وأبحي آياتك أيو أمدك وأخريي انت واي ودا فرحين وحويه ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات وحويه الهي سبحانه وتعالى ادبو عائشه وديدي وانا بريالي لولا جاءوا عليه باربعه شهداء ورافر مرقاتي محدو كين ويسن وروحان سبحانك هذا بهتان عظيم محدو اورن ويسن وحركني وارن وي ورميدان اوغينين عردق ادبارنيسان انو yahay عردق النبي ارن وي waa la iscanaantay waxaway muslimiintina aad ayaa waxaway loo baqay dad muslimiin oo waliba ahlu badar yihiin qaarkood ayaa hawsha waxaway dadkii faafiye kamid aha sida saxaabiga la yiraahdo Mistah ibn Uthatha oo Abu Bakr habartii ay dhashay Abu Bakrna oo siin jiray oo wax ku bixin jiray oo waxaway ninka uu gacan qabto oo ahaa saxaabigan agoon buu ahaa Abu Bakr baa wax siin jiray waxaway nafaqada siin jiray ila Abu Bakr markii aayadkan soo dageen in gabadhiisu bari tahan oo Ilaahay sheegay oo dhaar ku maray inaan wax taba ninka la yiraahdo Mistah aanu siinaynin Ilaahay ka soo degtay aayada Quraanka Ilaahay ku oranayo wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum dadna Abu Bakr uu yiri bala uhibbu an yaghfira Allahu li waxaan jeclahay inuu Ilaahay idhaafo kadibna nafaqadii ayaa ku soo celiyay oo sida ayaa uu nafaqadii ugu bixiyo biilkii uu siin jiray ayaa uu sidii u siisiyay saddex qofood ayaa suubanu amray sidii riwaayaadka xadiistu ay sheegayaan in la xado oo 80 jeeda lagu dhufto ninka la yiraahdo Xasaan ibn Thaabit oo gabyaagii nabiga ahaa ninka nabigiisa ku difaaci jiray oo kamid noqday dadka ku fidnoobay arrinta ayada xadiisatul ifki iyo gabar mu'miniina Zaynab bint Jahsh la dhalato la yiraahdo Hamna bint Jahsh iyo Mistah ابن أثاثة صدح دبا حوي من سديت الجيدل أيال ودفت المداف أياني ونقنيسا لكن منافقينتي رسولك ما نو حدين ونمك أيجا موصل حدين حد كموصل وفي نمك أيجا هذا بصاحب قصدي عائشة الله كره لنقضي حديث الإفكي ayaan halka ku soo gabagabeynina hadii aad ka heshay qisadaas share gareey muuqaalka channelka subscribe saar la wadaag saaxiibada aad baad u mahadsantahay saaxiib la soco muuqaalka xigo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh